ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ayaa fashiliyeen qarax nooca miinada oo xalay shaqadii dhexe la soo dhigay xaafadda Horseed oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar waxaana goobta soo gaaray saraakiisha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Jowhar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Hirshabeelle ugu horreyn waxa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Jowhar Jibriil Xaraare xalay abaarihii saq dhexe ayaa qoladii arhanka dareed argagixisada ahaa ayaa qarax intay soo qaadeen ayagoo meelaha ku kufaya waxa ka war helay ciidamada gaafreegayo amniga waxayna la dhacdhacayeen xaafad kamid ah afar tabaaxo oo degmada Jowhar xaafadda Horseed waxa meeshan hurdada waa laga kacay waa la soo jeedaa ciidamada ammaanku saraakiisha qof hurda ma jirtay maamulka iskaashaday xaafadaha waxa waa la qabtay sida looga bartayba waxa ayaguna waa fashilanteena meeshan ka jooga ma kartaan haday yimaadeen anaguna sidaas loo qabahayna hadii rabbi idmo insha Allah ta'ala dhammaan shacabka magaalada Jowhar sida maartay si dhow iyo maartay si fog bay nolol shaqeeyaan waa ku mahadsan yihiin ciidamada habeen aan hooyan maalin aan hirgelin qorraxada iyo dhadada iyo dhaxanta ayagana ku roondeeyo ku gaafreeyo ayaguna waa mahadsan yihiin laamaha ammaanka taliyaha saldhigga degmada oo asaguna shaqadiisa mar walba u heelan joogteeya asaguna waa mahadsan yahay waxa qoladii waa miinadii waa qabanay waa bixinay waxaan u wacnay qoladii oo taqiinay oo amisom si tartiib ah loo qaaday wax khasaare ah haba yaraatee ay geysata ma jirto insha Allah ta'ala waa fogjignaantaas waa si lama ulaabayna taliyaha booliska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa isna goobta ka hadlay nimankan waxay caadaysteen inay ummadan argagixiyaan dhibaateeyaan maalin walba qarax ay soo qaadaan ilaahay mahadiis waa fiijiganahay shacabkuna waa hurdada waa ka kaceen oo si fiican inay la shaqeeyaan shacabka Jowhar waxaan ka codsanaynaa sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa karaamadooda inay nala shaqeeyaan dadka hadda howlahan naga gacan siiyeen waa ku mahadsan yihiin waxaan u sheegaynaa nimanka dhagar qabayaasha dadkan waa soo jeedaan habeen iyo maalin mana idinka yeelaan waxa aad damacsantiin ilaahay idinkiisa ayagoo ilaahay kaashanayo ay dadaalayaan waxaan idin leenahay idinkana hees baabi'ina ummadana ha qarribina naftiina ku cayaarina shacabka degmada Jowhar waxaan leenahay sidaas hadda nolol shaqeystaan nolol shaqeeya hadda saan isugu xirnaanana cadawga waa ka adkaanaynaa dadka nolol shaqeeyana waxaan ballan qaadaynaa inaan amaalmarin ay ku farxaan siino anagoo ka bilaabayno kuwa xalay shaqada nala qabtay haddii ilaahay yiraahdo cid kastoo nala shaqeysana amaalmarin ay ku farxaan siinaynaa abnigana waa ka wada shaqeynaynaa garabkoodan taagannahay habeen iyo maalin ayaga u taagannahay saakay waxay damceen ummadan baabiyaan si nabada ayaa uga qaadna meeshii ay dhigeen si nabada lagu fashiliyay ciidanka amniga markay arkeen way ka carareen kabahoodii iyo waarkaysiin iyo dharkoodii meesha u carareen laakiinse raadkooda waa haynaa ayagana inaan gacanta ku soo dhignaan rajeeynaa ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Hirshabeelle Liibaan Cabdiraxmaan Cali ayaa goobta ka hadlay laamaha amniga foojignaanta dheeriga ay maalmahan ka wadeen caasimadda magaalada Jowhar Hirshabeelle ayaa sababtay in la fashiliyo qaraxa maanta xaafadda Horseed qaraxaasna wuxuu ahaa qarax ay ugu tirigaleen inay ku laayaan bulshada maaragtay reer Hirshabeelle haddii ay doonayaan qolyahan argagixisada ah inay laayaan mas'uuliyiinta kaliya ee dawladda u shaqeyso hay'adaha dawladda meelay degan yihiin sida idin muuqataba qaraxan meesha hadda uu yaala waa meel xaafada ay degan yihiin dad shacab ah oo rayida bulshadan waxaan rabnaa ka wasaaradda amni ahaan hadduu ilaahay idmo in qolihii xalay fashiliyay qaraxana wasaaradda amniga iyadoo kaashanayso taliyaha saldhigga iyo dhammaan laamaha amniga maaragtay ay qusayso in abaalmarin buuxda aan maaragtay siinayno waxaan rabnaa shacabkan reer Shabeellana inay la shaqeeyaan laamaha amniga maalmahan waxa socday howlgallo ka dhan ah qolyaha nabadiidka ah ee looga saarayay magaalada ilaa banaanka sad ka warhaysaan waxay rabaan inay dhabarjibin ku sameeyaan dagaalada ka socdo gobolka Hiiraan marka waan ku filanahay intaas in ka badan
haddii ay maaragtay dhagartooda maleegaan maaragtay ma dhabarjibin doonto ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan rabnaa marka taliyaha saldhigga booliiska wasaaradda amniga in maaragtay ciidanka xalay iyo shacabkii geystay maaragtay inay fashiliyaan qaraxaasi in wasaaradda amnigana ay u ballan qaadayso abaalmarin dhameystiran haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan leenahay wada shaqayn wanaagsan ciidankii amnigana waxay ku jiraan howlgaladoodii man istaagi doonaan dhalinyarada la soo qaldaayo oo la leeyahay jannad galaysaana jannadu nooca lagu ma helo saad ka war haysaan waxaan waxba ka sii horeeyay haddii aad su'aalo badan weydiisana ninkan raba inuu isqarxiyo ama naftiisa haligo waxaad arkaysaan inuu leeyahay hal iska cafiyo sababtoo ah waxaad dareemaysaan inuusan ahayn ba qof maaragtay miirkiisa iyo dhimirkiisa uu joogo haddii laba maalmood aad hayso maalinta wuxuu ku leeyahay waa la khalday marka waxa ka garan kartaa marka waxaas inaysan mabda ahayn ay yani mabda diin ku salaysan ahayn laakiin ay tahay fikir qof uu leeyahay oo ku gumaabayo shacabka Soomaaliyeed Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan la kiba Soomaali Cable TV caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar